I just need to transition it. There we go. Mic check 1 2. You're good. So
daawadayaasha v o eda ee nagala socda facebooka waxaanu idin leenahay halkaad daawanaysaan waa live oo t v ah oo ka imanaya aqalka cad ee dalkan maraykanka oo v o edu ay si toosa uga soo gudbinaysa halka cilada xagga farsamada waan ka xunnahay in mararka qaar aad maqli weysaan codka shanqarta halkaa kasoo baxaysa laakiin waxaanu idiin soo gudbin doonaa hadba meesha ay wax marayaan innaga ayaa idinla socodsiin doona waxaana haatan bilaabatay in madaxweynaha maraykanka barack obama hadda xilka ka degay iyo madaxweynaha cusub donald trump ay wada socdaan oo ay ka baxayaan aqalka cad iyagoo kusii jeeda dhismaha capital hillka oo halkaa ay ka jeedinayaan halkaana ay ka jeedin doonaan wixii ay ugu talagaleen oo t v ah oo ka imanaya aqalka cad ee dalkan maraykanka oo v o edu marka waxaanu idinla socodsiin doonaa hadba meesha ay wax marayaan marka donald trump khudbadiisa jeedin doono isagoo ka hadli doono khudbadiisa dhaarinta xafladda dhaarinta siday u socoto wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar oo halkaa joogana waanu idiin gudbin doonaa si aad ula socotaan waxa halkaa ka dhacaya weli waxaad naga daawanaysaan bogga facebooka ee v o eda oo aan si toos idinkaga soo tabinayno magaalada washington stuudiyaha v o eda dhismaha cohen building waa maxamed cali xasan oo idin leh daawasho wanaagsan waanu ku mahadsantihiin aragtidiina iyo fikirkiina wixii aad qabtaana noogu soo hagaajiya facebookeena iyo emailkeena voa somaly com welina halkaad naga daawanaysaan waa v o a weli waxaa socota gawaaridii madaxweynaha cusub ee maraykanka barack obama iyo madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump iyo obama ka qaadaysay aqalka cad kuna sii jeeda aqalka capital hill oo ah xarunta baarlamaanka dalkan maraykanka ama koongareeska oo ay ka dhici doonto xafladda dhaarinta madaxweynaha cusub donald trump fikirkiina daawadayaal iyo taladiina intuba waa muhiim waana soo dhaweynaynaa wixii fikira waxaad noogu soo hagaajin kartaa voa somaly com waxaad ku soo qori kartaa boggeenna waxaad noogu soo diri kartaa whatsappka wixii muuqaala fikirkaaga ku aadan inaguna dib ayaan halkan ugu ciyaari doonaa waxaa socda gaadiidkii madaxweynaha cusub iyo obama ay saaraayeen oo hadda maraya waddada la yidhaahdo pennsylvania avenue oo isku xirta aqalka cad iyo xarunta baarlamaanka dalkan maraykanka dhinacyada waxaa taagan ciidamadii security-ga ama ammaanka ee secret service-ka oo dhinacyada ka taagan waddada doonaya inay markaa ilaaliyaan amniga waxa socda gawaaridii madaxweynayaashu ay saaraayeen waxayna tegi doonaan halkii loogu talagalay si halkaa xafladda dhaarinta ay uga dhacdo oo iyadoo jidka dhinacyadiisana ay taagan yihiin ciidamadii ammaanka iyo dad kale oo loogu talagalay in ammaanka iyo habsamo socodka dhaqaaqa gaadiidka madaxweynayaashu ay saaran yihiin maaragtay sida ay ku socdaan iyo halka ay tegayaan si ammaankooda loo sugo meeshan aan ka fogeyna waxa taagan oo jooga oo sugaya dad maraykanka ka yimid goboladiisa kala duwan oo malaayiin gaaraya oo doonaya inay markaa iyaguna daawadaan xafladda waa maalin taariikhi ah madaxweynihii ugu horreeyey ee aan siyaasi ahayn baa dalka maraykanka ay dhaarinayaan waxaana socota gawaaridii halkii ay ku socdeen
ka mid ah madaxweynayaashii hore ee